tiimam ka socda wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa gaadhay degmada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaasi oo ka dilaacay xanuunka shuban biyoodka oo dad ku geeriyoodeen maalinka guud ee degmada Dhahar ee bariga gobolka Sanaag waxaana halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gurmadka degdega gaarsiisay iyo sidoo kale kuwa degmada Dhahar iyo xubno kale ka yimi meesha la Arigaabo ka soo gurmaday shuban ka dilaacay meesha la yiraahdo Dhahar degmada Dhahar dad badan oo ku dhintay dad badan waa soo daatay kadibna waxa weeye laba tiim oo caafimaad iyo laba ambalaas dhaqaatiirtii ah ruuxaantii waxa weeye waxa la nimi ilaa inta la nimi hawsha gacanta ayaa lagu hayay waxa la nimi dad badan oo soo daatay dad badan oo ku dhintay ilaa 10 qof armaanaya waa ku dhintay meesha dad badan oo jiifana waa la nimi intii hadeer dhaqaatiirta ayaa ka warbixin doonta intii hadeer aanu joognayna dad badan baa soo daatay waxaan codsanayaa dowladda Soomaaliland iyo madaxda islaamka iyo cid kasta oo taakulayn karta halka ka soo taakulayn karta cid Allah cidii soo taakulayn karta oo bini'aadanimo ku soo taakulayn dadka bini'aadanka inay soo taakulayaan oo si fiican baa Ilaahay inuu suurtageliyay wax dhintay intii aanu joognay haba yaraateena ma jirin baahida jirtay imika weeye beeshanadii waxa weeye beeshanada badan baa jooga xaafadihii ku jiraan wali isbitaalkii soo gaaray waxa loo baahan yahay in difasha fiican loo sameeyo dadka wali biyaha ka cabiyaan biyo wasakhaysnaa ee ku jiray ceelasha ku jiray dhaaman ku jiray marka waxa la doonayaa sidii kuwa looga hortagi lahaa kuwa imika waa la daweeyay laakiin wali factorkii meesha problem ka soo baxay wali wuu jiraa dhaxareed waana xaalad way degan tahay inta waxa ka dhiman oo lagu kordhinayaa sidii dadka loo wacyi gelin lahaa وحاولت الله سكانترول لها وحنوكينا ولو جرا إليه إذا ويجرا وحوي المركب هو دبعتها كانت بيه نظيف هاي وكاسدي كلورين برخت محمود جدي بولشة تي في ورك قبل كالسناك